kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimiga iyo qadarinta mudan oo ilahantiima meel ka soo joogtaanba waa mar kale iyo muuqaalka Soomaalida wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dawladda Soomaaliya mudane Cabdisamed Macalin Maxamuud Sheekh Xasan ayaa dhawaan booqasho ku yimid magaalada Toronto dhabaha diyaaraduhu ka hadaan ee Pearson International Airport ayaa waxa ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan jaaliyadda Soomaalida oo halka ugu hortagay markii wasiirku soo degayay ka gadaalna waxay u soo dhaadhiciyeen magaalada iyagoo geeyay goobtii loogu talagalay waxa uu wasiirku bilaabay kulamo gaargaar iyo gooni ah oo la yeelanayo xubno ka tirsan beesha Soomaalida dabadeedna kulan weyn oo ay jaaliyadda Soomaalidu soo qaban qaabisay ayaa lagu qabtay gudal ku yaala magaalada Toronto halkaas oo ay ka soo qayb galeen dad gaariya boqolaal waxaa la ka soo jeediyay culamaa u diin duqow iyo dad loogu talagalay inay goobta ka hadlaan waxa iyaguna halka si weyn uga muuqday fanaaniinta Soomaalida ee kooxda Waabari ee Toronto oo halka ka qaadiyay heeso wadani iyo Soomaalinimada muujinaya culamaa u diinka ayaan ka maqnayn oo Sheekh Axmed Nuur Qallaafe ayaa halka ku gudbiyay عشر ديني أسوأ كهذي باهيد الله قبو دتكو إني كرتان دول النمذا يوناجا كذا لنا حرية برنامج كواليبان كبيرة أي سود وياي دتكي كهذي وح دول بدي بالله يري مسؤول كتير شاريد الصومالي ده أو كهذي مجا عمد الصومالي تورنتو وحرسي سهل أو سوي نقول يا راضي مرحلة دي الصومالي وحي لقبتي يو كلياش دتك الصومالي ده جارهان waxyaabihii ama reer Toronto sidii ay u qayb qaateen soo dhaweynta dawladda iyo wufuudada kala duwan ka gadaalna waxa loo yeeray diini nin la yiraahdo oo isagu ka hadlayay waxqabadkii wasiirka intii loo magacaabay iyo guud ahaan dawladda Soomaaliya Cabdisamed waa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ayaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay oo Liibaan Gabeere oo dadkii ka codsaday inuu la soo dhaweeyo wasiirka dadka ayaa saacad isruuxan ayaa isqabsaday ka gadaalna waxa uu bilaabay inuu ka hadlo waxyaabihii dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ay qabteen isla markaasna wuxuu iftiimiyay waxa ay doonayaan inay higsadaan isagoo ku nuuxsaday in bisha August 20keeda ay noqon doonto maalinka ugu dambaysa ee dawladda imika jirta ay wadanka ka howlgali doonto ka gadaalna dadka ayaa dooran doona ayuu yiri waxa ay doonayaan isagoo si weyn u sharaxay ama u qaadaa dhigay dastuurka cusub road mapka waxa loo yaqaan dib u dhiska dalka dib u heshiisiinta iyo shirki dhawaan ka dhacay magaalada London barnaamijkan wuxuu ahaa mid si weyn loola dhacay dadku ay aad u dhageysteen intii uu si ku hadlayay Toronto ka tagtay ama nawaaxigeeda ka tagtay baa hadda madax noo ah oo Cabdisamed Macalin Maxamuud Sheekh Xasan oo ka mid yahay oo ay ka mid yihiin xildhibaanada qaarkood dhinaca fadhiya oo ay ka mid yihiin maaragtay in badan oo halkaan fadhida oo ama state ka socota ama maaragtay gobol ka socota ay ka mid yihiin laakiin halka gool oo aan leenahay waxa weeye Soomaali weyn wax kale ma rabno haddii gobol oo inta bulaalo oo wanaag gaaro Soomaali oo dhan baa gaaraysa haddii wadanka gudihiisa ay wanaag gaarana Soomaali oo dhan baa wada gaaraysa marka walaalayaal marwooyin iyo mudawayaalo aan inta waqtiga hadda waxa la marayaa meel aad iyo aad xasaasi u ah aynu intaan isku duubano annagoo reer Toronto
oo waddankii tagno aynu niraahno militariga annaga ugu badan biliiska annaga ugu badan madaxda sare annaga ugu badan marka aan hogaamino waddanka anigu markaas ma u hadlayo Canada Toronto kaliya waxaan u hadlayaa dad xilkasa oo aad iyo aad aqoon u leh oo Soomaalidu aysan u kala soocnayn baa ka tagay halkan waxaan ka dirnay rag badan oo ay ka mid yihiin hada ninka la yiraahdo maaragtay halkan waxaa ka tagay wasiirkii dastuurka prime ministerka oo naga dheereen baa ka tagay wasiirkii arrimaha gudaha hadda caawa nala fadhiya dad badan kan biliiska xukuumadda saacid ayaan garanayaa oo Toronto ka tagay waxaan ka tagay Burhaan oo asaguna maaragtay Torontoniana rag badan oo Torontoniana oo xusiisto ayaa ka tagay Saciid Ducaale oo maaragtay isboortiga qaranka baa nala jooga hadday saas tahay soo mudnaan ma aan lihin mudnaan weyn soo kuma lihin dawladda Soomaaliyeed marka prime ministerkii wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga qaranka baa nala jooga waa inuu xagga ka sheegaa Canadianku inay door weyn ka qaateen dalka Soomaaliyeed iyo dawladdiisa waa mahadsantihiin salaamu calaykum سلامك بعد وحن ربارنا مغلبات من السدحات أن قيام هاد عليم سودوين تقييمها بدن يتحقريت يولا النمط إذا كم وقتها يسودوين سين يو هذا إذا قدرت ديرات كأ وقت سيسين برنامج مغلبات من السدحات من قيام هاد عليم waxaan soo marnay meelo badan baan soo marnay Ingiriiskan soo maray intaan joogay Ingiriiska waxaan la kulmay Soomaali fara badan Soomaalida ku nool UK siyaabo kala duwan bay loo soo dhaweeyeen laakiin midaan way iga duwan tahay sababtoo ah guriga lagu soo dhaweynayo waxaan rabaa in si gaar ah loo mahadceliyo dadkii soo qabanqaabiyay rag iyo dumarba oo xafladan noo soo qabanqaabiyay quruxda badan iyo maxaa la yiraahdaa time soo galiyeen mar labaad iyo saddexaad loo mahadcelinayo waxaan rabaa inaan wax yar oo aan warbixin idinka siiyo wadankii aan ka nimid sida usoontiinba wadanka intiina badan waa ka warhaysaan maxaa la yiraahdaa ma waxa ugu warhaysaan akhbaarad kala duwan ama waxa ugu warhaysaan dhinaca idaacadaha iyo internetyada balse waxaan rabaa inaan saddex qaybood oo wadanka maanta meelaha ugu muhiimsan aan idin taabto oo idin fahamsiiyo sida ay xaqiiqada u dhabtaa ka jirto Soomaaliya maanta siyaasadda Soomaaliya ku socoto waxaa loo gudbay waqtiyadii lagu jiray inuu maxaa la yiraahdaa maamulka hal meel ka yimaado waxaa loo gudbaya maanta maamul ah in dadku ay sheergareeyaan maamulka ay sheergareeyaan oo aan hal qof kaliya talada uusan haynin dadka dhan isugu yimaadaan sida ogtihiinba bishii September 4teedii waxaa la isugu yimid xamar waxaa isugu yimid Soomaali kala duwan inkasta oo mararka qaar ku dheeraad dadka ma dhamaystirnayn haddana kelmadaas ma dhama ilaa ma dhamaystirnayn walba iska taagan tahay intii wadanku ka hagaagay kulli waxaa la isugu yimid meesha la yiraahdo Muqdisho waxaana looga wada hadlay qaabkii loo wadi lahaa wadanka loo maamuli lahaa siyaasadiisa meeshii loo wajihi lahaa iyo qaabkii loo wajihi lahaa waxaa la isla gartay in dawladda maanta inta jirta ay dhammaato bisha August 20keeda ee sanadkan 2012 waxaana la isla gartay in waqtigaas intii ka horeysa la diyaariyo dhowr shay la diyaariyo dawladda maanta inta jirta waxa u taala assignment ah waxaa la samaystay waxa la yiraahdo roadmap-kaas mararka qaarkood oo laga hadlayo waxaa dadku u fasiraan in loo diyaariyo oo Soomaaliya loo diyaariyo balse xaqiiqada waxa weeye Soomaaliya ay kaligood ay fariisteen ayuu kaligood inay barnaamijkan samaysteen ayuu kaligood inay isku waafaqeen inay samaystaan barnaamij la roadmap-kaas oo loo kala saaray 5 qaybood loo kala saaray
waxaa loo kala saaray qayb la yidhaahdo security iyo qayb la yidhaahdo good governance iyo qayb la yidhaahdo reconciliation and political outreach iyo qayb la yidhaahdo reform parliament yaa loo kala qaybshay waxaa lagu talagalay muddadaas gudaheeda in lagu dhamaystiro arrintaa lagu dhamaystiro waxaa intaas weheliya constitutionka weheliya oo ah assignmentka ugu muhiimsan oo maanta horyaalla Soomaaliya horyaalla in la dhamaystiro constitution dhamaystiro saa ogtiiba Soomaaliya constitution waa lahayd horey u lahayd laakiin waxaa lagu soo kordhiyey dhowr qaybood oo ay ka mid yihiin qaybta human rightska oo markeedii horeetaan aad ugu jirnay iyo qaybta federalismka oo ayaduna aan markeedii hore Soomaaliya qorshaha ugu jirnay saa ogtiiba shirarka lagu qabanayay Garowe lagu qabtay shirar looga hadlayay arrimo kale ma ahayn waxaa looga hadlayay arrimaha constitutionka looga hadlayay waxaa isugu yimid Soomaali baa isugu timid maxaa la yiraahdaa waxaa laga wada hadlay qaabkii loo sameyn lahaa constitutionka loo sameyn lahaa waxaa laga wada hadlay sidii loogu fidgarayn lahaa constitutionka loogu fidgarayn lahaa baarlamaanka imaan doona iyo maxaa la yiraahdaa tirsigiisu intuu noqon doono iyo qaabka baarlamaanka loo keeni doono waxyaabaha laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa in baarlamaan cusub la sameeyo baarlamaanka hadda taan jira run ahaantii waxaa jirta waxaad moodaa Soomaaliya laga hadlayo baarlamaanka xoogaa waa la yidhaah balse xaqiiqada markaan kaga hadlo baarlamaanku waxa ay qabteen wax qabtay lama arag shacabka gurmadaan saacad walba ay taagan yihiin meel kasta waqtiga abaar u dhaceen dadka ugu badan oo habeen iyo maalin aan seexanin bay ahaayeen waxaan aaminsanahay baarlamaanku wax la taaban karo inay sameeyaan waxyaabo fara badan dacaayadaha waa jiraan sida maxaa la yidhaha meelaha la wadwado balse xaqiiqadii waxaan idin sheegaya baarlamaanka waddanka maanta ka jira shaqo la taaban karo ay qabteen wax lagu faan karo inay sameeyeen waxaa la isla gartay baarlamaanka oo cadadkiisu hadeertaan 530 ka badan uu gaaray in la yareeyo tirsigiisa la yareeyo oo laga dhigo ilaa iyo 225 laga dhigo 225 member of parliament in la doorto waxaa la isweydiiyey qaabka loo dooranayo siyaabo badan oo kala duwan baa looga hadlay waxaa la yidhi hala sameeyo gobollada laga soo doorto waxay noqon weysay suurtagal bay noqon weysay waxaa la yidhi hala sameeyo degmooyin ha laga soo doorto haddana waxaa isla gartay waddankii inuusan kulligiis maxaa la yidhahdaa uusan nabadgelyahooda haysanin uusan doorashada ka qaybgeli karin waxaa la isla qaatay mabda aan maanta aad u qurxoonayn laakiin hadda aan la haysanin wax looga baxo oo la yidhaha 4.5 sida 4.5 waxaan u malaynayaa markii la aasaasay waqtigii ugu horreysay oo bagaati lagu aasaasay waddanka Kenya waxaan is leeyahay waxay ahayd dhibaato aad u weyn oo Soomaaliya usoo timid waxaa laakiin haddeertaan aad u adkaatay sidii looga bixi lahaa haddii la yidhaahdo ha la yeelo one man tuuladaas samee qof waa ku nool meeshay ku nooshahay 50 qof iyo meeshay 500 qof ku nooshahay iskuraas noqon maayo marka waxaa adag in la sameeyo statistics la sameeyo waxaa adag security in la xalliyo haddeertaan waxaa jira gobollo badan oo laba tegi karin gacanta lagu haynin marka waxaa qasab noqotay in la isticmaalo barnaamijka 4.5 oo la yiraahdo dawladda dhalanaysa 4 sano soo socota inay u diyaariso qaabkii looga bixi lahaa 4.5 looga bixi lahaa oo loo gaari lahaa inuu qof walba codkiisa iyo maxaa la yiraahdaa uu wax doorasho sameeyo waxaa kale oo jira markii la isugu yimid meesha la yiraahdo Garowe oo laga wada arrimahaas haddana waxaa soo baxday in la isugu imaan doono meesha la yiraahdo London oo shirka la isugu imaan doono dowladda Ingiriiska waxay u yeertay caalamka arrimaha Soomaaliya laga wada hadlo waxaa lala shiray wadamada Afrikaanka lala shiray waxaa loo sheegay mabda'a Soomaalidu ay qabto waxaa kaloo lala shiray wadamada caalamka Islaamka lala shiray waxaa loo sheegay mabda'a ay dowladda Soomaalidu qabto waxaa lala shiray dowladaha Yurub baa lala shiray waxaa lala sheergeliyay ayagana mabda'a ay dowladda Soomaaliya qabto in wax kastaba laga hadlayo mar kastaba banaanka Soomaaliya aan wax laga hadli karo aysan ahayn arrinta ayada ahayd deel fara badan baa loo galay deelkii loo galay waxay keentay inay wadamada intoodii badnaa isku mowqif ay ka qaateen arrintaas ka qaateen oo isku mabda ka qaateen oo Afrika ay isku dhinac ka martay Carab oo dhan dhinac ay ka wada martay Yurub inteeda badan ay isku dhinac wada mareen waxayna kaliftay inay arrinta ku ekaato kaliya in Soomaaliya la saacido oo laga saacido dhinacaas meesha ku hor gaarsiin ka qaadayeen ilaa ay maanta la soo gaaray in magaalada Muqdisho kulligeed dhammaanteed ay xor tahay
وكل جين أي وضع شقينا لحية توانكي دقم أي شقينا لحية توانكي صدق بوليس يلا بدي صدق أربورك يدكدوا أي وضع شقينا إن حالة إلى هذا هذه دول كلنا فكشناليين وكل وضع شقينا طلق محمر الضعفي وإلا يبردوين حرتها إن بيضاء حرتها إن الرجالين إن معلومة صوص عضك اسماعيل جوار إن حر نقدان سيد نقصونتين waxaa dawladda barnaamij ku yaalaan yahay gobolkii maxaa la yiraahdaa soo gala gacan soo gala in loo sameeyo nidaam imaan loo sameeyo inaan kor looga soo magacaabinin oo aan maxaa la yiraahdaa loo soo qoondeeyaan loo soo dirin ee la weydiiyo degmo kasta la weydiiyo cidda ayadu ay mas'uul u noqonayso cidda ayadu maxaa la yiraahdaa ay dooranayso cidda ay rabaan inay mas'uul u noqoto in ay u keenaan marka ay u keenaan kabacdina maxaa la yiraahdaa loo sharciyeeyo saa ogtihiinba wasaaradda arrimaha gudaha arrimahaas waxay saaran annaguna waxaan u soo bandhignay meel kasta oo la xoreeyo in isla markiiba loo diyaariyo maamul loo diyaariyo maamulkaasna uu shacabka ka yimaado oo uusan noqon mid kor looga soo looga keenay uusan noqon waxaa kaleeto oo ayadana maxaa la yidhaha taxadar badan laga muujiyey oo si fiican looga dadaalo waxay ahayd meel kasta oo la xoreeyo inaysan ka dhicinin in maxaa la yiraahdaa meeshii dadkii horaan laga saaro waxana aan loo samaynin kabacdina ay dhici karto in warlords ka dhashaan waxaa lagu dadaalay meel kasta isla markiiba in loo sameeyo maamul loo sameeyo iyadoo lagala tashanayo dadka degan meeshaas degan oo ayagu joogaan lagala tashanayo waxaad ogtihiin waayahan dambeeta waxaa jira states fara badan oo soo baxaya regional states fara badan oo soo baxaya run ahaantii Soomaaliya markii dawladdii hore oo Maxamed Siyaad Barre waqti ugu dambeysay waddanku wuxuu lahaa 18 gobol ugu dambeysay haddeertaan maantayto mararka qaarkood waxay dhaafeen tirsiga ilaa inta xafiiska iyo taala waxay kor u dhaafaan 37 state oo Soomaali marka waxaa moodaa xitaa gobolladii ay ku badan yihiin sida runtii ah meel haddii loo fiiriyo xoogaa waxaad moodaa inay dhib tahay meel haddii loo fiiriyo waxaan u arkaa inay faa'iido tahay sababtoo ah dadku waagi hore qabiil iyo waxbaa loo kala qaybsanaa haddii maanta ito regional states iyo maamul iyo loo gudbo waxaa moodaa tallaabo fiican hore loo qaado inay tahay balse waxaad moodaa intooda badan stateska intooda badan in lagu diyaariyey ama lagu sameeyey meelo fara badan oo ka baxsan Soomaaliya ka baxsan sida Ingiriiska oo kaleeto iyo Mareykanka oo kaleeto iyo Kenya oo kaleeto iyo waxaan isleenahay marka stateska la sameynayo wuxuu leeyahay nidaam uu leeyahay waa in meesha lagu sameynayo dadkii gudaha jooga ay safoor gareeyaan waa in dadka gudaha jooga ay raacsan yihiin waa in maxaa la yiraahdaa ay dadka ka timaada aysan ahayn wax korka lagu soo sameeyay aysan ahayn runtii waa soo dhaweynaynaa waxyaabaha wanaagsan oo la sameynayo laakiin waxaan jeclaan lahayn in la marsiiyo dariiqadii loogu talagalay oo ay maraan weeyii dadku ay ku qanacsanaayeen oo ay noqoto wax ka yimid dadka dhexdiisa ka yimid ee aysan noqonin wax maxaa la yiraahdaa ka yimaaday banaanka yimid aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa soo dhaweyseen waxaan diyaar u nahay haddii ilaahay waxa la message ay digtaan inaan qaado haddii ilaahay yiraahdo oo aan gaarsiiyo dawladda inteeda kaleeto iyo shacabkii Soomaaliyeed waxaan ogaataan shacabkii Soomaaliyeed walaalihiina inay idinka sugayaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi